dagaalo adag oo dhowr toddobaad ama dhowr biloodba ka socday galbeedka gobolka City ayaa maalmihii la soo dhaafay u muuqda kuwa hakad ku yimid maxay tahay sababta ay u hakadeen maamaro ayaa kor ka yimid mise xeelo dagaal ayaa jirta waa sidee goobihii lagu dagaalamay qodobkeena ayaynu ku eegi doonaa waxaa dhinaca iga fadhiya jaamac gala jaamac soo dhow ما شاء الله dagaal kumanaan wiil ay ku baxeen khasaaro badan geystay iyo gabdhoodba dhowr sanana soo socday laakiin soo laba kacleeyay dhowrkii bilood hadda u dambeysay guulo badanna maalmihii u dambeysay Soomaalidu ay gaadhay hadda gabi ahaanba waa istaagay oo ma uu socdo halkee horta wax marayaan بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودان بمدة الصوماليات ميل كستو يجوان بحلاه السلام الله عليكم إن على هذا قلبيت كجبل كسيتي وها يعني مدة دير بيصوت حناي لكن مدة أفر بلاد أي حد دجال دي قدام بي يعني أما أي صوع صبون هذين أما أي كعرتين دي مدة قلبيت ك شعب ككودا كان جودهم بقلبيت كجبل كسيتي iyo ciidanka xoogga gaarka ee deegaanka Soomaalida waxay ahaayeen kuwo inta badan iyagu difaac ku jir laakiin markii godadkii loogu soo galay iyaguna waxa weeye ka gilgishay oo ka maaragtay oo ka geylamay halkaasna waxa weeye gulufka maanta socda ayaa ka bilowday maalmihii la soo dhaafay xaaladdu waa deganeyd abaabul dagaal adag baa horta la galay dagaal lagu hoobtay lagu riiqday gacmaha la isula tagay godadka la isugu galay haba yaraatee aan waxba la isu reebanin yaa dhacay dagaalada saddexdii maalmood ee ugu dambeysay dagaalka yaani galbeedka gobolka City military Ethiopia ahaan wixii la rafanayay wixii godadka loogu galay ee goob walba laga kiciyay ee ciidamada deegaanka Soomaalida daba marteeyay ee buuraha aaga daba mara iyo dhulkaas saldhigyada ka samaystay yaani markii hore iyagoo ciidan Ethiopian ah ay soo galeen meesha ciidanka Soomaalida la hadleen gadaashooday degeen anoo iyagoo waxbaan dhexdhexaadinayna Soomaalida dib u soo baxaa leeyay waa laga diido waxa leeyay wadanihiina qabsada way degeen meesha canfar bay isu bedeleen si Ethiopian oo ahaan bay canfar noqdeen soo wax ciidankii federaalka Ethiopia ku shaarkooda qabay bay ahaayeen maxaa iska gadinayba waa labada shaar way iska hoos qaadan kolba mid bay xidhaan كعنفرتها مرنا كعنفرتها يسوكر مريان مرنا كفدرالك يسوكر مريان مركي لقى أتكادو عنفرتها كفدرالك يسوكر مريان وفدرال بانهاي يو حباي لدح أوردان ميرها مهم أدو مركي وحيت هاي وهل قولوا واحد ماشا كده يعلم يوا إثيوبيا أما عنفرها وضعته أما إثيوبيا هالشيء مهم أدو مركي وحيت هاي هل كاد دجال الذي كدعي مدة صدح مع الموضة ayaa si fiican la isula meereystay ila maalinkii ugu dambeeyay sifayn iyo la gaaray in maxaan ku raahayto qashin qaad lagu sameeyo aagagii oo dhan wixii ka dambeeyay culaysyo kale iyo maxaan ku raahayto dib isu abaabul yaa ciidanku uu ku khasbanaaday oo in maaragtay ciidanka dib loo abaabulo waxyaalo fara badan maaragtay la sameeyo kama madna oo meesha kama baxsana dadaalo kala duwan oo dhinaca Addis Ababa iyaguna ka imaanaya iyo culaysyo ka soo kordhaya waxa kale oo iyana meesha ku jirta kooxo jawaasiis oo Soomaaliya oo Addis Ababa fadhiya oo maxaan ku yiraahdaa halka iyaguna ka soo afuufaya jigjiga oo maaragtay in u arka fursad lagaga faa'iideysan karo Mustafa Cagjar inuu yahay dagaalkan oo ku doodaya walaalaheen Ethiopia la isku dilayaa لا ويل إثيوبيان هيسكون دمان هيس الدولة ده حوالي كلا جادة وين لقى قبتها مصطفى ماشى مصطفى كم بونق ولا كل بكي ما رتاي تكرسي جوايا إثيوبيا ولا الواسمة مصطفى أكثر مركي واجي هورا عبد الله بلد قال لهم هي إثيوبيا بلد قال لهم هي صار كده كويس دي ومصطفى لا قال لهم هي إثيوبيا أنا واحد والبكتش علمانت ورما قالوا كذا ورما واحد والبكتش علم يا جوجا halkii Mustafa uu ku jiray 2017 iyo 16 ee maalin walba maxaan ku dhahay 20 ka post ku soo qori jiray Facebook-ga iyo ku jiraan waxaas Mustafa eeday miska day waxba ma eedin Mustafa sabab waxa la soo qufay iyo wixii la soo bixiyay danihiisa ma aha halkii uu ka wadaaba dhacdo kasta oo dhacday ma ogtahay in la keeno hadal isagu hore uga yiri ها تمسك يرجع بصدق ما جاب سنة يعني
ما يو هرتا سيدي وحكومة سو قرقران فيسبوك كوما بدنا إيه دجال كودوا ودجال وشي بدن وي بنا بيتكو كبلودا بنا بيتكو كنا شركة جرايدنا يا شركة جرايدنا بنا بيت كان حيزه وقتان خلاص تعودنا مركب بنا بيتك كلهم halkaas ay ku kulmaan qolo siiraad weyn maaha waana farabaday nin walba madaxweyne 70 nin walba madaxweyne rabo dibkiisu leeyahay laakiin Mustafa dib ugu filan Mustafa dib ugu filan mid orom ah oo meelaha iska socda isagiina naftii waa qabatay oo hadda abiina ma gaaro shamalas buu ku xidhay oo difaac ka galay axmaaradii waa jabtay laga adkaaday Soomaa abi iyo isaguna iskuma fiicna Soomaa oo kuwana ka soo galay Soomaa شملس بهذا كحوليه شملس برئيس الوزراء مدحوينه بوا marka muhiimadu waxay tahay culaysyo kala duwan oo dhinacyo badan ka imaanaya oo ay qayb ka tahay yaani in ciidanka la abaabulo gurmad iyo dhan walba loo habeeyo loo diyaariyo dagaalo kala baxa dhammaan horta gobolkii galbeedka city 90 ku dhawaad boqolkiiba waa la xoreeyay waa laga saaray canfar waxa soo haray 4 magaalo oo ay dhufaysa kaga jiraan 4 magaalo marka in hal mar culayska la saaro oo militariga Ethiopia uu ku geedaaman yahay uu joogaa in la isla jeero kadibna markii dhulka Soomaalida laga saaray la yiraahdo dawladda Ethiopia hadda wada hadlaynaa la yiraahdo ya maaragtay qorshaha qayb ka ah waxa soo kale qayb ka ah hal nabadeed oo la raadinayo oo hadii ay canfari ka baxdo deegaanka Soomaalida dhulkiisa ciidanku iyo shacabku nabad bay ku noqonayaan halka nabadeed waanu imanayaan halka nabadda iyo maxaan ku yiraahdaa diyaar garowga iyo abaabulka iyo culaysyada dhinacna dhisaba ka imaanaya bunaabeedyada ka soo baxaya waxa soo dhan waxay noqdeen yaani wax yaabaha hakadka dagaalka galiya way jaamaco waxa jira gurmadyo dhanka caanfarta ka imanaya iyo kuwo dhanka Soomaalida ka imanaya dhanka caanfarta gudaha Ethiopia kaliya laga soo gurmanayay ilaa Eritrea iyo Djibouti waa laga soo gurmanaya wada waa dhulkooda iyaga degan maxaa u diiday soo gurmadaan ciise hani wasoo Djibouti ma deganin ha away odaygi kuwa jooga gobolka city yaan u dhamayn dagaalka galbeedkiiba loo daayay ogaantii marka laga reebay xoogaa laakiin waagi hore dadku ma dhamayn hadda way soo banaarugaysaa city hadii aan fariin xuduudaha ka talowday Djibouti waa talaab weey Djibouti meesha waxba ku haysay dadka Djibouti degan dadka gobolka galbeedka gobolka city degan baa ka badan horta wax weeyaysa kula dhaqo Djibouti Djibouti dadka kala baxay ma Djibouti waa lis og yahay Jamhuuriyaddu waxa weeye waa meesheeda jamhuuriyad ku tahay waana salaamaya jamhuuriyadda laakiin marka laga hadlayo population iyo dal ahaan wax waxtar oo Djibouti ay leedahay oo hadda aniga ay hagranayso hadday ka tagi weydo dhinaca siyaasadda laakiin ciise meeshan uu dhasha dhigtay gobolkan city ayuu dhasha dhigtay meesha ugu baaxad iyo awood badan yahay weey hadii kan wax iska celin way ka Djibouti waxa uu soo korinayo koori wax way iska celiyeen way dagaalameen way difaaceen walaalo u hiiliyana way heleen Soomaaliyeed oo garab taagan oo la dhimanayo la dhaawacmayo dhulka la leh Soomaalidan garan marka waxba Djibouti loogama baahna intan ciise meesha joogta haday midoobaan oo meel wada jeesadaan cid waabin karta iyo cid hor istaagi karta ma ay jirto ee Soomaalida waxa loogu baay Soomaalida waxa loogu dhintay waa Soomaalida oo dhan ciisuna aad moodaba inay number 1 sii galayaan oo dadka kaga sii horeeyaan waa hoggaan xumo hoggaankii siyaasiga ahaa ee beelweynta ciise يعني ودد مجا عليه وين بكوشير ترى ما أنت دلك يتوب يدك يعني لا كونيانا يكوشيران هذا أنا نحن هاين آذن الله عليه نكاس وان سلامة يا بقول كيف بقول وجيسي وهليي وموادين وبقف يعني Soomaali nimadu ay ka dhabtahay waa qof jecel mar walba madaxa Soomaalidu inuu sareeyo laakiin intii xumayd ee siyaasadda kula jirtay ee xilalka loo dhiibay yaan ogolayn in codkiisu kor soo baxo Ibrahim Usman iyo Aadan maxaa lahaa Aadan Ibrahim kii kale joogay ku xigeenka abi weeye la lahaa Aadan Faarax kuwaas oo aan dhil dhacday toosinkeed magacooda baan garanaynin dilo weydii magaca la yiraahdo karti ay ku sheegaan xitaa ma laha يا قرينا يا أو خدنا هرتاجن سمعنا كلام سياسيين إسكود أو حوجن أو حق قبل
كصوماليدا ما أنت يجعل الربي مجا الصوماليدا إن تون كسرتان سياسيين تبيش عيسى تون كسرتان إن أيلام ميراستان أو صومالي نما وحكور رابيان أو صوماليدا أبابولان أو صوماليدا ديرجليان أو كعيان أو حنون كأي دريميان أي صوماليدا أسوق بيان وحي ما موقته waxaan loo joogin Ethiopia bay ka sheegay Ethiopia waa tan idin dilaysa Ethiopia waa tan idin baabi'inaysa Ethiopia jiritaankiina ma rabto ninka Soomaaliga ah ee waliba Ciisaha ah ee maanta Ethiopian baan ahayle ama qofka Ciise ee maanta Ethiopian baan ahay markaan arko meel weyn bay xanuunta Ilaahay baan ku dhaartay waa sababtoo ah yaani nin bahalkii cunayay sheeganaya war hatta duruuftu markay kugu kalifto manihin baa la yiraahdaa ولا قعرة سأب أمه شو هيرك لو جارسية لكن هاي إثيوبيا بانها ما كده هذا waxaan macna lahayn baa lagu arkaa lagu siilaa Ethiopia kaaga baahan Ethiopia Soomaaliya oo dhan baan loo baahnay adiguna adoo dhiigaaga daadanayo oo calooshaadii qubanayso oo maxastaadii maalin walba hortaada lagu gumaadayo aanfari kaamayna adkeena ciidanka Ethiopia ay yihiin kuwa saa ku yeelaya yaa hadana magaceedii ku sii dhigantay oo leedahay wali Ethiopia baan see ani marka wax kuula qaybsan karaa seen kugu aamini karaa see maartay qofka muwaadinka ah ee Soomaaliga ah ee ku soo gurman lahaa walaalka ku dilahay iskala hadal baa lagu dhig cadawga cadawnimadiisa u muujiya muhiimada aan leeyahay waxay tahay siyaasiyiinta iyo dadkan wax garadka ah ee maanta ay tahay in ay yani ku hogaamiyaan Soomaalida waa in ku hogaamiyaan Soomaalida nacaybka iyo cadaawadda Ethioopiyaanka waxaan ka rabnaa waa inta faagara laakiin marka adiga la soo istaagtay Ethiopia baan nahay waxaan u dacwoonaynaa Ethiopia maxaa uga dacwoonaysaa منك الدلة هي اللي دعوة إذا ما مغلس وين جامع وحرة أنا كسوق بقبيل ولا هذا الله هذا الهيء اللي نيروبي ويكون عيان والله وضع على سكوسه هرفريسيني نيكي هالجماعة هاي السلامة سي آذن على سنوات شو قاعد نيروبي ها وحالي على دقال أوجات هي عدو شركة سوقل حتى في الإسابة هذا الله واحد كتير ملها أوكي أنا كل شيء حدو آذي بدل شيء واحد يصدق مادان واحد عفر موضته عدة وحوي لبكو هرتا هذا نجح كوجو ما أنت نجح توريو هذو لا يكوي له ما نجح حق بسنة يسامي سقف كيسوت تورا ما يقف كذا راد تب عنفر واحد صوت تورا عنفر واحد نجح وكا عنفري سومالي لما تجعله بكرت هرنا ولا ما تجعله من دبنا ولا تجعله من مايسو waxaan meesha isku dilayo waa deegaankii Soomaalida iyo dawladda Ethiopia baaqigeedii ha mise dawladda Ethiopia ma dawladda Ethiopia baaqigeed wax Ethiopia leeyahay bijirta way burburtay fiiri baaqigii Ethiopia oo raba inuu ka naga faa'iideysto fiiri meeshan Oromo wax istustay Oromo waxay istustay oo xaqiiqo biya kama dhibcaana Mustafa Xalani oo adiga iyo reerkiinu wixii ka bilowda meesha la yiraahdo qabri bayax qaata dhaafa شيء ما يديك هتجنب بالي ما يديك عليه هذا جو قبل اللي هذا دقمة اللي هذا والله مكنس وإحنا عاس مكنس يعني مقالة تشجيع كده بلعبنا يسوع أورام لا يلا لكو أورام يا يعني هل كيلومتر يا بد تيجي ولا قارك تيجي لكن ما أركيه وبيها لك رقعتها لا أورام هذا الله أورام سؤال كده أورام وحي استوستي إن عن فريق أي اعتماد دول ماشي اللي هالجرة ده بقى سومالي هالكا شوكتنا عكت الله مريض وحي عرر وين اللي هذا عن فريق باتهين مركي يعني مجالة الدير ده بقى وحي دينا عكا يكبح المجالة ده وقالوا عن فريق مجالة الدير ده بقى وحي كبل لوضنا إلى يوم حاول قبر بيحنا وقالوا عصب أوراميا اللي قدر أيوه إلى هذا الشيء وقيبة أوراميا مع عاصمتها عاصمة الديان كسوماليا قيبة أوراميا إلى يدقمدا أو بره إلى يوم حاول هذا تسيس أو حدود اللي جا أيوه وحاول واسكو وتوس ومانته وإن يرى وحاها كلية شعب كدقمدا أو بره أو لما أسكري بوليس أي إسخلافان ولا يهضر لها ما هو وحي صدرنا ولا شقي سؤال قرن
oroma marka filinkaas ay istustay wax Ethiopia la yiraahdo oo maanta oroma ay doonayso ama ay u dagaalamayso ama ay u difaacayso ama ay difaacayso ma ay jirtee kaliya waxay rabtaa dal oroma la yiraahdo oo badna leh berrina leh xuduudana la leh dalalka adduunka dalalka dariska ah aan iraahdo xuduudana la leh waa hadalkii muxuu ahaa Turkiga ka horeeyay kan kii magaca lahaa wasiirka gaashaandhigga marka laga dhigay muxuu ahaa kii bartay yaraa tabcaanka ah Ethiopia kii oromada ah madaxweynaha oromada lama magarsa kaas ayaa 2018 balbi abdiye la xira iyo wuxuu yiri oromo waxaan rabnaa buu iyo xuduudaha Soomaaliya Kenya iyo Suudaan inaan loo dhaxayn uuna hirgeli waa hirgasho abiiba hirgeli weli wax ka dhiman ma jiraan aw barra ka dhiman aw barra way gaadhaya aw barra laba qof hadii boolisku dakhro reer baa idin dilay baa la leeyahay oo way mudaharaadayaan afti baa laga qaadaya sidii maxaan ku ilaahay to meesha la yiraahdo jinacsane maxay ku baxay soo aadgara bas oroma markaa waa ku diisay oroma hadda looma dhaxeeyo boorame iyo oromiya looma dhaxeeyo aw barre waa oromiya sida lagu wado aw barre iyo harawe iyo lafaciisa iyo kaas oo dhan waa ku daayeen dhaqaajintii bulshada un baa hadha qorshayaasha kale waa la soo diyaariyay qorshii wixii oo dhan way dhamaadeen ugaasadii baa meesha fadhiya Addis Ababa iyo garaadadii hal mar markii ay qayliyaan dadkaas laba askari oo boolis haday dakhraan qofka dad kamida waa la kicinaya waxa waa laga shaqeeyay sirdoonkii baa jooga waa loo dhex raacinaya waa la isdhex tuuraya odayaashii baa hadlaya ma doonayno deegaanka Soomaalida baa la dhihi bas wadadii sheed dheer iyo maxaan ku ilaahay jinacsani iyo ay mareen baa ay la maraya halkaas maxaan ku ilaahay ay ka tagaysa muhiimadda marka waxay tahay waxani waa qorshe laga shaqeeyay wax Soomaaliya ay ka ogtahayna ma aha Soomaalidana waxa kaliya loogu soo dugaalo waa qabyaalada iyo reer hebel baa maanta idin haysta iyo reer hebel baa sidana iyo reer hebel baa kana Mustafa iyo waxa aad wadataan waxa la yiri looma baahna adinka qaylidiina iyo daradiina nala dhaafa markii Oromaya inta ay hobsato waxa weeyaan na dhaafa idinka muranku marka wuxuu noqon doonaa jigjiga deegaanka Soomaalida noqonaysa mise deegaanka Oromiya ma Oromiya raacaysa dalka Oromiya raacaysa mise waxay raacaysa ogaadeyniya halkaas muranku ka bilaabanaya taasa la isku diri doonaa wax Itoobiya leeyahay ma jirto meesha Itoobiya cid u shaqeynaysa ma jirto Oromo qorshaheeda weey Oromo markay horta gaadho xuduudaha hadda tii Kenya way gaadhay Soomaaliya tii Soomaaliya waqooyigana waxa weeye isha baalkeeda ula jirtaa kaliya tii dhinacan maaragtay doolo iyo buulahawo taasayna helaynin oo yar adag taasa adag haa kaliya sababtoo ama dhowa waa inay soo gabagabeynayna waa inay 600 kilomitir qiyaastii waa inay soo socon gobolada Daawo iyo Liibaan oo dhan ay cagta soo mariyaan taana cirka ka dhow laakiin way riyoodeen riyo fiican bay ku riyoodeen muhiimaddu marka waxay tahay dagaalka waqooyi galbeedka gobolka City guulihii laga gaaray guulo waaweyn bay ahaayeen halkan waxaan uga hambalyeeynaa taliyaha ciidanka xooga gaarka ee dawladda deegaanka Soomaalida General Siyaad maxaa la yiraahdaa General Siyaad Daawud Muuse Nahayne General Abdi Siyaad Gafayde waa nin dhalinyaro geesi wadani haliyay dalkiisa iyo dadkiisa difaacaya dariiqa inta uu ku taagan yahayna bogaadin iyo ammaan iyo maaragtay to garab istaag yu nugu leeyahay Soomaaliya oo dhanna sidoo kale guud ahaan shacabka deegaanka Soomaalida waxaan leeyahay hal garab istaago taliska ciidanka xooga gaarka ee dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa waxa weeye waa aad ha u aaminina madaxweynaha hada Mustafa aad loo aamini karo fartu doonu qoraa wuxuu doonu sameeyaa nin maxaan ku ilaahay laakiin ciidanka aamina ciidanka aamina taliskiina aamina maamulka iyo dawladdiina aamina laakiin Mustafa aad yaa la isugu halaynin soo agara hadii la soo dharbaaxo soo ordahayo dhagan oran kiiba ahayn iyuu soo galayaa marka yaan aad laakiin hal dhiiri galiyo baalasha uu ku duulaya hal loo noqdo waa ogahay yaani Mustafa wuxuu ku fiican yahay dagaalka dhinaca afka ah gacanta iskuma fiicna kan maaragtay ficilka iskuma fiicna marka talada fariisa waa ka baxaysaa haduu ku fiicnaado waa in line lahaay kuma haboono maya line dhib ma laha oo أول هو إسلام لما أنا كلا بتقبني
dadkan baabaha bay iska dhigayeen soo Way aga jaam. laakiin xagga nimanka maaragtay iskuma ay fiicna waxaan leeyahay marka hal la xoojiyo xiniyaha loo noqdo baalal ha loo noqdo baadad ha loo noqdo taliska ciidanka xooga gaarka ah ee dowladda deegaanka Soomaalida iyo taliska maleeshiyada iyo dhammaan hogaaminta sare ee ciidamada difaaca deegaanka Soomaalida boqolkiiba boqol waxaan leenahay la garab istaago qof walba laba caagadood oo biyo ah oo shaqal meeshu waa naar iyo dhimbilo weey dadka galbeedka gobolka City degan iyagii baa rafaasan ee Reer City bud dhigaha ha ahaadaan reer jigjigaha ku xigaan reer dhagax buur ha ku xigaan reer goday iyo reer qabri dahar ha ku xigaan dadkaasi waa in gurmadkoodu uu noqdo joogto sida wanaagsan ee taliyaha ciidanku uu u maareynayo hawlaha ciidankana aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ugu amaanaynaa sida uu u xakameeyay sirta ciidanka iyo maxaa ku yiraahdaa in ciidanku baraha bulshada ay qayb ka noqdaan sida looga xakameeyay waa waxtar waa geesinimo waa isbedel yani boqolkiiba boqol la mahadiyo weeye kuma leeban leenahay marka taliyaha wax kalena kuma amaanayna inaad dhimataan rabnaa wax kale kama rabno waxaan rabnaa isoo dhulkiisa difaacaya inuu dhinto ama uu guuleysto labadaba mid labadaba آخرية أدوب أوين أحسن سجى إن شاء الله تعالى وايد دلكيس يسوي دفاع أنا يحق الدجال لما يا قف دلكيس هذه اللي بصور ومحمد وحق بقولي إنه استدفاعه سمعنا نقرأ أنا بصور بلاي ودم بنصور إثيوبيا ما شاتية كل الدول راسه حياتي لنا تليها يعيد الكيسبة إلهي سبحانه وتعالى جوش هاي السيا قرب كنا الله قالوا ملائكة الله يدين كحوتشيو عيدا كهنا عيدا حوجله وأفريقيا أردن وحكي بدلا خريرات إثيوبيا وحكي بدلا يتنجيز كأفريقيا ساسا رجينا ولحوينها حقيقة الديوان كصومالي ذا وحن ربي وقبر يا أنو كدي قفايدة هدي لك راه هدي لهدور راه ما صنت هاي جماعة قلت قول بنور رجينا جيش كنا يديجان كنا يدك الصوماليات با أنت عسى يعني تعالى هنا كسوق قبل نقضب كنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.